السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبيال isku soo noqod wanaagsan maqaal kale ayaan idin wadaa maqaalkan wuxuu ku saabsan yahay sida Amazon aad wax uga soo iibsan karaysid kadibna aad yani adigoo Soomaali joogo aad suuqyada Amazon ee Mareykanka aad wax uga soo iibsan kartid kadibna aad dalkii keensan kartid alaabta dalku timaan karto marka maqaalkan ayaan rabaa inaan idiin tuso sida ognahay yani Amazon haddaad Soomaali joogtid alaabina yani kasoo gadid kadibna Soomaali lagu keeno way adag tahay tusaale haddii halkan aan dhahaa to deliver to Somalia oo kale haddaan dhahaa alaabta intooda badan waxay dhihi doonaan not deliver to Somalia tusaale haddii idin tusayaa dhandan baan dhihi oo fiirsa shay ka mid sameecadaan oo kale aan ku tijaabinaaba anything ayaan ku tijaabin leh hadday tahay haasatan oo kale aan ku tijaabinayaa markaan tago halkan waxaa ku qoran saad aragtaan geeskan this item cannot be shipped to your selected delivery location please choose a different delivery location marka alaabtaasayto meesha locationka aad dooratay laguma deliver gareyn kara ayaa ku qoran marka taasina waa wareer aad doonaysna wax ka soo iibsata haddana alaabtii aan yani Soomaali lagu keeni karin marka waa inaan yani xal kala aan raadinaa maqaalkan ayaan rabaa inaan idiin tuso marka saaxiibayaal haddii tahay markii ugu horeyso channelka aad arkayso channelka inta badan waxa ku soo gudbiya sida suuqyada online looga soo adeegto sidoo kale waxyaabo badan oo kale waa ku soo gudbiya sida suuqyada online looga shaqeysto saaxiibayaal marka haddii tahay markii ugu horeyso channelka ku cusub tahay aad danaynaysid mawduucyadaas soo gudbiyo subscribe saran ku leeyahay si aad ula socoto maqaal walba aan soo geeyo maqaalkan insha Allah hadda dhameystid waxaan ka codsanayaa inaad like saartid dad badan oo xajira sidoo kale ayagana doonaya inay Amazon wax ka soo gataan si uu u gaaro insha Allah maqaalkana uu dad badan ay u arkaan insha Allah intaasi dhiirigelinayay tahay waa maasantiin haddii marka aan yani usoo laabto maqaalka saaxiibayaal marka qaabka yani ugu soo adeegin karta alaabtan Soomaali kugu keeni karo waxaa waaye waxaa raadinaysaa wax la yidhahda third party company waxaa jira alaabaha soo shipping gareeyo marka waxay ku sameynayaan sidii Alibaba oo kale waaye address ayay ku siinayaan oo Mareykanka gudihiisa addresskaas ayaad adigu isticmaalaysaa marka adiga addresskaas aad isticmaashid kadib marka alaabta iibsanaysid waa idin tusi doonaa anoo sameynaya marka alaabta aad iibsanaysid oo aad tagtay qaybta ugu dambeyso lacag bixinta adresska ee ayagu ku siiyaan ayaad gelinaysaa kadibna lacagta kaarkaaga bangiga ayaad ku bixinaysaa kaarkaaga bangiga isticmaalaysidna waa inuu noqdaa kaar international I think waafi hadda kaar international waayo oo u malaynaya sila tahay ana weli ma aan tijaabinin laakiin dad ka hadlaya waan arkay marka kaar international credit card ama mastercard waa inaad haystaa kadibna aad ku bixisaa alaabta marka waxaa lagu geenayaa adresska qolooyinka yani adresska ku siinaya lagu geenayaa ayaga ku fiirinaya kadibna way kusoo shibgareynayaan marka qolooyinkaas ayaan rabaa inaad tuso qolooyinkaas waxaa la yidhahdaa Shibito ani already iyagoon waan ka samaystay Shibito ayaa la dhahaa kuwo kalena waa jira ma US la yiraahdo laakiin Shibito hal mid ku fiican yahay wuxuu ku siinayaa plan free ah marka plankaas free waa iska qaadan kartaa haddii sidoo kale oo premium aad ka gadatidna $10 bishii sanadkii $60 balanyadooda ayaa idin tusayaa haddaan account-kayga taga meeshan waxaan ka arki karaa haddii package ay ii taalo wax package haddii ima yaalo waa 00 saaragtaan okay adresska ay siiyeenna waa kana saar kartaan my white house address waa kaas adresska ay siiyeen okay my account haddii aan tago balaanka markaasito hadda balaanka aan haysto waa kana waa free member wax lacag lagama rabo laakiin haddii hodhow markaas alaabta yani waxaa laga yaabaa in la charge garayo
lacagaha taxka canshuuraha in la judge karayo ayaa macquul ah. Laakiin balaankan kale oo hadda idin tusi doono saddexdan balaan ayay leeyihiin. Free waa single package, hal alaabo kale markaa yani aad keensanaysid ama soo qaadanaysid waa free. Waxaa jira midkan oo 60 sanadkii ah laakiin monthly waa $10 waa premium frequent markasta ayaa yani alaab yani aad soo soo ship garaysan kartaa bishii intaas oo mar. High volume waaya midkan dadka business kale loogu talagalay oo wax badan soo ship garaysanaya. Bishii waa $12 sanadkiina waa $100 $99 waaye. waa high volume yani wax xisaab ma lahan wadarsity container yani soo raran kartaa. waana farqi ku kala diin oo kuwana inta ku arki kartaa. waxyar hoos aan wada midka free balaanka waxaa lagu siinaya address free ah. kulligood free address ay leeyihiin. sidoo kale Europe address oo free ay ku siin karaan haddaa address Europe aad dooranaysid. Japan sidoo kale consolidate ay ku sameeyaan. Consolidate haway alaabta markii lagu keeno way ku fiirinayaan consolidate package. qaybta free memberka sidoo kale way leedahay email iyo chat support. email iyo meel aad chat support ka kala xiriirtid way leeyihiin, kulligood way leeyihiin. laakiin qaybta freega ma lahan sales tax free shipping waxa la yiraahdaa oo ah lacagta canshuurta oo ay ayaga ka bixinayaan. midda single ka ma laha adiga iska bixinaysid. laakiin kuwan kala premiumka iyo business membershipka ayaga ayaa ka dhiibaya. phone supportka sidoo kale ma laha qaybta freega kuwa kale way leeyihiin oo telephone wacitaan aad ka wacdid ama telephone ay ku siinayaan. marka saaxiib wasaas marka addresska kuwan ka soo qaadatid مثلا هذا addresska isiin waa kana magacayga dhamastir halkaas igu qoran addresskaas isiin magaalada waa California waaya. marka waxa aan sameynaysid waa kana ayaga ku sheegayo waxa sameynaysa ayaga ku sheegayo sidaan ayaa sameynaysaa. dukaan alla dukaan xataa Amazon kaliya ma dukaan alla dukaankii Mareykanka ku yaala offset leh ayaa tagi kartaa walmada kamid ah aad tagi kartaa alaabta ka iibsanaysaa addresska Mareykanka gashanaysaa. waxay sameynayaan ayaga addresskaas ay alaabta ku geenayaan. addresska waa address Shibito ay leedahay. Shibito alaabta way fiirinaysaa magacaaga ku qoran dhag kadib way kula soo xiriirayaan halkaaseeto wadanka ku keenaa everything ay kugu soo qaadayaan kadibna ku keenayaan. marka saas way marka addresskan aad soo qaadanaysaa kadib meesha Amazon ay imaanaysaa. aniga alaab hadda waxa jirta kaadka igu jirto kaadka saarkiisa halkaas waxa igu jiro hal xabo qofka suuqada online ka adeegto fahmi kara kaad wax laga wado halkaas koro kaadka waxa igu gashan hal xabo hal shay aan soo doortay. microphone-kan oo kale ayaan doonayaa inaan soo gato marka saasaan dhahayaa. oh shit waa inaan addresska horaan soo celiyaa. okay addresskaygaan soo ceshtay. marka qaybta baynawda markaad tagtid addresska meeshaan ayaad ka gelinaysaa. ani hadda igu jira laakiin adiga meesha saalix waa lagu dhigi doonaa. hadda waa kana add delivery instruction ma ahan laakiin add delivery address lagu dhigi doonaa meeshan. aniga hadda change adaan dhahaa waxaan dhihi karaa add new delivery address. kadib marka meeshaan aad ku buuxin doontaa magacaaga. magacan waxaa laga rabaa magaca ay qoladan ku siiyaan oo yani meeshan kugu qoran magaca ay adiga meeshaan ku qoratay ayaa sidoo kale meeshaan ku buuxinaysaa. phone number kuma siinayaan markii free tahay markii ay premium tahay number lagu siin doonaa. ani any number iska gashtay laakiin waxa wanaagsan qaybta premium kana ka gadid kadibna number ay ku siinayaan. okay soomaha kadibna street addresska halkaan aad ku buuxinaysaa iyadana halkaasa hoose
أنا صعدة unit number هكذا unit number كيتكون بوحني سواء كاسة قيبتس suit something كقرنتاي Torrance ومجالة city دواية هالكاسة كون بوحنيسا state كا وهكذا أنت تكررتها state كا و CA وتاعن كاليفورنيا هدارتي initial كا CA دا جوجل كا جلين كرتا وكوان كرتا مركز عندي CA ماشكي وحكلية CA كوجرال كا وكاليفورنيا أوكي zip code لقارب zip code كا وكنا واللمبر كان 90503 لمبر كبلاونا كدمنا halkaas aad gelinaysaa kadibna hoos u soo bixisa use this address leedahay soo xagaratay maaha markaas kadib aniga hadda waa iskaga soo laabanayaa kadibna marka halkaas imaadid halkaan ayaad imaanaysaa add credit or debit card halkaas ayaad kaarkaada kasoo gelinaysaa markaa kaas ku dhufatid kaar bangigaaga ayaa inta lagaa raba inaad geliso kaar bangiga waxa lagaa raba waxaa waaye kaar nambarka kaarkaaga nambarkiisa name and card waa kaarka magaca kuugu qoran kaararka kaar bangiyada intooda badan magaca yani waa lagugu dul qorayaa magaca marka meesha kuugu qoran ayaa ku qoraysaa okay halkan expiration date waqtiga uu kaarka dhacayo bisha iyo sanadka bas laga rabaa bisha uu dhacay sanadka kaarkan ay ku qoran tahay kaarka markay dhinac kale u gudbisid qaarka dambe oo ku arkaysaa bisha uu dhacay iyo sanadka uu dhacay CVV lambarka waa lambar sireed kaar kasta oo bangiga lambar sireedkaas uu leeyahay qaybta dambe ayuuna ku yaalaa 3 lambar waaye 3 lambar ayaad halkaas gelinaysaa kadibna AR card ayaad dhehaysaa marka AR card dhadid halkaas ay ku soo galayaa kadibna pay now ayaad dhehaysaa meelhan pay meeshan ku imaanaa ku sanada kaar bangi maanan gelinin pay now ay ku meeshan halkaas ku galayaa marka authenticate rajayna insha Allah